International Court of Justice has denied Kenya's request to address it before the start of the maritime border case with Somalia. Kenya had wanted the court to grant it 30 minutes to address the judges on why it will not participate in the case. Soomaaliya iyo Kenya marka laga hadlayo danaha Kenya ee kaga aadan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Kenya dadaalkii ay gelisay inay xukunka ka tuurto madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumaddiisa oo laf dhuunta gashay u noqday Kenya sanadadii ugu dambeysay ayaan ba ahayn arrin sahlan. Dawladda Kenya ayaa cadaadis aad u ba'an ku haysa xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud. dawladda Kenya ayaa kadib markii ay dadaal badan gelisay inay xukunka ka tuurto xukuumaddii nabad iyo nolol safarkeedii ugu horeeyay ay ku tagto Soomaaliya oo ahayd xafladii calaamasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dul dhigtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu fasaxo qaadka uga imaanaya Kenya ee Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud oo u muuqday mid ka baqaya shacabka Soomaaliyeed ayaa ogolaaday laakiin dul dhigay shuruudo adag aysan Kenya buuxin karin. Shuruudahaas waxaa ka mid ah inay Kenya dhoofsato kalluunka Soomaaliya iyo qudaarta ka soo go'da waddanka Soomaaliya. Kenya ayaa arrintan ka cagad jiidaysa maadaama ay Kenya ay tahay waddan la xeebo soona saara kalluunka qaybihiisa kala duwan iyo qudaarta qaybihiisa kala duwan ay Kenya u dhoofiso wadano badan ee caalamka ka mid ah. Xasan Sheekh Maxamuud oo u muuqda mid aad uga baqaya dhaliilo badan oo ka soo gaara haddii uu fasaxo qaadka ayaa safarkiisii ugu horeeyay tan iyo markii loo doortay mar labaad madaxweynaha Soomaaliya ugu ambabixi doona magaalada Nairobi Kenya ee maantay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalinimada maantay u ambabixi doona Kenya si uu kulan ula qaato madaxweyne Uhuru Kenyatta halkaas uu safarkiisu qaadan doono muddo gaaraysa 2 bari. Kenya ayaa aad ugu diyaarsan sidii ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu qancin lahayd in qaadka laga dejiyo magaalada Muqdisho iyo gebi ahaanba Soomaaliya. Kenya ayaa Xasan Sheekh Maxamuud dhowr jeer hore uga codsatay inuu qaadka fasaxo si degdega laakiin xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan hakisay baqdin ay ka qabto in kacdoon shacab ama siyaasiyiin badan ay dhaliilaan. dhanka kale Kenya ayaana weli ka quusan arrimihii badda ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeyay. Kenya ayaa rabta dawladdan cusub inay kala hadasho in arrinta muranka badda Soomaaliya iyo Kenya lagu dhameeyo is-afgarad sidoo kalena la wada qaybsado wixii khayraad ay ka soo baxa baddaasi maadaama ay ku taalo xuduud 2 wadan. dawladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qodobadan hore uga diiday Kenya kana dooratay inay Kenyaba xiriirka u jarto maadaama ay Kenya ku gorgortamayso hanti ummadda Soomaaliyeed. dhanka kale Kenya ayaa aad ugu goodinaysa inay xiri doonto xerada qaxootiga ee ay ku jiraan Soomaali badan ee Kakuma iyo Dadaab. Kenya ayaa hore degniino ugu dirtay hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR inay xiri doonto xeryahani maadaama aysan ku qabin wax faa'iido ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu si qoto dheer u fiiriyo xiriirka ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya maadaama xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ay danaynayso heshiis inay la noqoto wadamada ku dhow Soomaaliya lana leh xiriirka joogtada ah. badana indhuhu waxay qaban doonaan qaabka uu Xasan Sheekh Maxamuud u xaliyo khilaafkan aadka u weyn ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. wadayaal waa naga intaas xogtii aan ku eegaynay safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu ambabaxayo maalinimada maantay waddankaasi iyo Kenya. fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socoto wararkan xiga. mahadsanideen.